sababta Putin uu u qabsanayo wadan dhan oo dhisan oo dawladdiisa iyo nidaamkiisa wato maxaase keenay dagaalkan uu Ruushka ku soo qaaday wadanka Ukraine in dunidu idil ay isla qayliso oo Mareykanka uu soo faragashto cabdiqafaar gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada waxa aan muuqaalkeena kaga hadlaynaa dagaalka uu Putin ku soo qaaday wadanka Ukraine iyo waxyaabaha sababay dagaalkan sidoo kalena kaashanbuurta NATO ay soo faragashato dagaalkan ka hor inta aanan u gelin dagaalkan iyo waxyaabaha sababay waxaan falanqeynaynaa xifaaltanka u dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka labadan wadan waligood waxa ka dhaxeeya xifaaltan xagga dagaalka dhaqaalaha iyo xulufaysiga waxayna kala hogaaminayeen midowga NATO oo horkacayo Mareykanka iyo Soviet oo horkaci jiray wadanka Ruushka waqtiga uu dagaalka ku qaaday Soviyetka wadanka Afghanistan waxa soo faragashtay Mareykanka waxa uuna aasaasay kooxda meeshaasna waxa lagu jabiyay Soviyetka iyo Ruushka waana laga saaray wadankaas sidoo kale dagaalka ka dhacay wadanka Syria labada wadan oo ay ku xifaaltamayeen Ruushka oo la jirsaday Bashar al-Assad iyo Mareykanka oo taageero siinaya mucaaradkii wadankaas ee ka soo horjooday nidaamkii Bashar al-Assad labadan wadanna waligood waxa ka dhaxeeyay xifaaltankaas haddana waxay ka dhex bilaabatay dagaalka uu Ruushka ku soo qaaday wadanka Ukraine haddii aan dul istaagno wadanka Ukraine waxa uu ka mid ahaa 15 wadan ee ku midoobay Soviyetka wuxuuna ahaa wadanka labaad ee ugu awoodda badan midowga Soviyetka marka laga soo tago wadanka Ruushka oo ahaa wadanka koobaad sidoo kale wadanka Ukraine wuxuu ahaa laf dhabarka ay ku tiirsan yihiin midowga Soviyetka oo wadankaas waxa ku taala xerada ugu weyn oo lagu tababaro ciidanka militariga ee Soviyetka dhaqaalaha iyo dakhliga lagu kabi jiray Soviyetka kala bar waxa soo saari jiray wadanka Ukraine oo wadankaas waxa uu leeyahay dhul beereed aad u badan waxayna caan ku yihiin oo lagu yaqaan wadankaas inay dibadda u suuq geeyaan qamadida 1991 kadib burburkii Soviyetka Ukraine waxa ay noqotay wadan gooni isu taag ah oo siyaasadiisa la madax banaan waxa ayna ka dhaxashay burburkii Soviyetka hub aad u badan iyo madaxyada iyo bambooyinka xambaara hubka nuclearka laakiin 1994 hubkii nuclearka waxa ay ku wareejiyeen wadanka Ruushkana wadanka Ukraine wuxuu u ballan qaaday in amnigooda uu sugi doono maadaama ay ku soo wareejiyeen hubkaas nuclearka waqti kadib waxa isbedeshay siyaasadii isdhexgalkii labada wadan Mareykanka oo ka faa'iideysanaya fursadan isku dhaca labada wadan ayaa heshiis saaxiibtinimo wuxuu la saxiixday wadanka Ukraine midowga Yurub iyo Mareykankana waxay go'aan ku qaateen in wadanka Ukraine xubin ay ka noqoto midowga NATO haddii wadanka Ukraine uu xubin ka noqdo midowga NATO meeshaas waxa ku baaba'ayso awoodii wadanka Ruushka oo NATO waxay saldhigyo ciidan ka sameysanayaan wadanka Ukraine oo daris la ah wadanka Ruushka meeshaasna waxa la keenayaa hubka casriga ah ee wax gumaado Ruushkana albaabkiisa ayaa la hor keenayaa hub casri ah oo agagaarkiisa idil waxa ku hareeraysan cadawgiisa madaxweynaha wadanka Ruushka Putin wuxuu xal u arkay in wadanka Ukraine uu ka hor istaago inay ku biiraan midowga NATO sidaas awgeed ayuu dagaal ugu qaaday wadankaas inuu iska fogeeyo in albaabkiisa hortiisa la soo hordhigo hubka wax gumaado Putin waxa uu damacsan yahay wadanka Ukraine in asaga hoos imaado oo ay noqoto dawlad asaga uu u taliyo laakiin wadanka Ukraine waxa ay ku tashanayaan in dagaalka ay ku caawiyaan Mareykanka iyo kooxdiisa madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden inta uusan dagaalka Ruushka soo qaadan waxa uu ku hanjabayay hadduu Putin dagaal soo qaado in dagaalkaas ay soo gali doonaan asaga iyo NATO haddana Putin uu ka dhabeeyay dagaalka oo kala bar wadanka Ukraine waa uu qabsaday laakiin Mareykanka iyo kooxdiisaba dagaal ma aysan qaadan waxa ay ku hanjabeen inay cunaqabateyn saari doonaan wadanka Ruushka Mareykanka iyo kooxdiisana in hadda dagaalka ay ka qayb galaan diyaar uma ahan President Putin, who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. wadamada Yurub waxay shidaalka ka iibsadaan wadanka Ruushka haddii meeshaas uu dagaal ka qarxana ganacsigooda ayaa u dhamaanayo sidoo kale wadanka Ukraine waxay taageero weydiisteen Turkiga in Turkiga uu dib u celiyo maraakiibta dagaalka ee Ruushka ay ka soo gudbeyso badda madow Ruushka Turkiga iyo Ukraine waxay xuduud wadaagaan badda madow oo dhinaca Turkiga xigto NATO warships have been stepping up their presence in the Black Sea in support of Ukraine as Russia builds up its forces on the Ukrainian border maraakiibta dagaalka ee Ruushka ayaa isa soo buux dhaafiyay baddaas laakiin Turkidu waa ay ka aamuseen sababtoo ah labada wadanba waxa ay leeyihiin saaxiib laakiin waxaa jira heshiis ee Turkiga saxiixday 1936 heshiiskaas oo dhigaya in Turkidu ay awood u leeyihiin inay celiyaan maraakiibta dagaal ee ka soo gudbeysa baddaas Access to the Black Sea is only through Istanbul's Bosphorus Strait, which is controlled by the 1936 Montreux Convention.
The convention, administered by Turkey, restricts naval vessels from non-Black Sea countries to a maximum of 10,000 tons per ship and for only 21 days. haddana wadanka Turkiga waa uu ka aamusay laakiin madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa waxa uu la hadlay Putin waxa uu ku amray inuu joojiyo dagaalka laakiin uma eka Putin mid joojinaya dagaalkan waxa uu damacsan yahay wadanka Ukraine in asaga hoos imaado haddana ciidamada wadanka Ruushka waxay gabi ahaan la wareegeen airportka wadanka Ukraine madaxweynaha wadanka Ukraine wuxuu ugu baaqay shacabkiisa qof walba oo qori qaadi karo inuu wadankiisa difaaco wadamada isku haleynaya oo Mareykan horkacayna heshiiska way uga baxeen oo shib ayaa loo dhahay sida xaqiiqada ahna Mareykan iyo xulafadiisa hadda dagaal diyaar uma ahan oo haddii dagaalkan soo galaan waxa la isticmaali doonaa hubka wax gumaada ee nuclearka haddii mar hubkaas la isticmaalana dunida way u dhamaatay oo wax sii soconaya ma jiraan ganacsi iyo isku socodba